بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan clipkeena kusoo qaadanaynaa wada shaqaynta iyo muhiimadda ay leedahay kala dambeynta waxa weeye maxaa ku dhacday maamulka SSC ciidan waxa weeye maamul dhaqan culimo iyo shacaba waayo haddii aan la kala dambayn meesha loo socdo lama gaarayo. marka si aan arrinta aynu bal isu dul taagno waxaan u qaybinayaa saddex qaybood. qayb waxaan kula hadlayaa maxaa ku dhaca jamaahiirta iyo ciidamada qalabka sida ee SSC Khaatumo. qaybna waxaan kula hadlayaa maamulka waxa weeye maxaa ku dhacday iyo culimada iyo dhaqanka. waxa weeye marka ugu horeysa haddaan ku bilaabo insha Allah bidilaahi maamulku waxa weeye waa runtii waxa weeye maxaa ku dhacday gaabisna waa jiray dadaalna waa jiray laakiin gaabisku waxa weeye runtii cudurdaar ma laha. waxa ugu weyn gaabiska waxa weeye deegaamadii waxa weeye maxaa ku dhacday magarasa SSC inaanu maamulka wada gaarin laakiin hadda waynaga arkaynay oo dadaal fiican baa socda waana bogaadinay waana habalyeynay. waxaynu kaloo aynu bogaadinaynaa in maamulada magarasa maxaa ku dhacday deegaamada aanu waxa weeye maamulka aanu gaarin weli in loo dedejiyo waayo waxa weeye Soomaalidu waxay tiraa gees loo kuleelka lagu gooyaa. waxa weeye maxaa ku dhacday gaab baa soo galaya haddii aan meeshii magaaladan maamul lahayn waliba magaalooyinka waaweyn sida Buuhoodle oo kale iyo maxaa ku dhacday magaranaysaa Boocame oo kale iyo magaalooyinka Xudun oo kale iyo Talaax oo kale iyo magaalooyinka waaweyn dhammaantood sida u kala waaweyn Woodward oo kale iyo maxaa ku dhacday Dharkayn iyo Kalabaydh iyo magaalooyinkaas sida ay u kala waaweyn ma garanayo laakiin haddaan magaaladu aanay maamul lahayn oo waxa weeye maxaa ku dhacday kala waa isku dhexyaac shacabka isku dhexyaacaya wax walibana marka mar haddii maamul la waayana wax waliba waxa weeye maxaa ku dhacday banaanka u soo baxayaan dadkii intii aragtida gaabneed ayaa soo baxaysa. marka waxaan leeyahay horta maamulku waxa weeye hadda dejiyo maamulka inta qaybaha ka dhiman waana ku mahadsantihiin hadda shaqada aad qabatay madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo shaqada ay wadaan hambali waanu ku hambaliyeynaynaa inta dhimana insha Allah ilaahay ha idin fududeeyo baan leenahay. waxaan kaloo rabaa inaan la hadlo waxa weeye maxaa ku dhacday dhalinyarada jamaahiirta ah iyo ciidamada qalabka sida waxa weeye xaquuq bay leeyihiin. xaquuqda ay leeyihiin waxa weeye maxaa ku dhacday runtii waa inay ku shaqeeyaan awaamirta dowladda insha Allah iyaguna ay xuquuqdooda helaan waana inay sabraan oo ay waxa weeye ogolaadaan in magaranaysa xaalad kala guura adag lagu jiro waayo ninkan ka soo horjeedaaba magaranaysa kula dagaalamayaaba isaguba wuxuu ku sabrayaa duruufo badan kuwa aad ku jirto kuwa lamid ku sabrayaa maamulkiisa iyo maxaa ku dhacday nidaamkiisuna magaranaysa ugu adeegaya. idinka laftiina waxa la rabaa maamulkiina iyo maxaa ku dhacday ummadiinaba inaad ugu adeegtaan si maxaa ku dhacday runtii aan caadifada ku jirin si aan laablakac lahayn si wanaagsan oo waxa weeye maxaa ku dhacday ixtiraam iyo kala dambeyn ku jirto. waxa weeye marka idinku waxa weeye maxaa ku dhacday waxa tihiin ciidan baatiin ciidanka aatiin waxa weeye maxaa ku dhacday waxa jaanib leh maamulku jaanib buu leeyahay dhaqanka iyo culimaduna jaanib bay leeyihiin qolo walbana doorkeeda in looga dambeeyo wey. waxaan arkayaa oo maqlaya hadallo soo gaargaaraya oo runtii aan qurux badnayn oo ay ka mid tahay waxa weeye hadda shalay oo dhan magaras khamiistii bay abaanu malaynaya in lagu dilay gobolka Cayn waxa weeye nin maxaa ku dhacday ganacsada ah oo reer waqooyi ah oo beesha magaranaysa habar yoonisa. ninkaas waxa weeye sida xaqiiqda ah waxa lagu dilay sida warku igu soo gaaray aniga xaqdarra lagu dilay sababtuna waxa weeye maxaa ku dhacday ma hubaysnayn ninku haddaan hubaysnayn ama aanu dagaalamayn oo aan xabad ridayn de xaq uma wax lagu banaysto dhiigiisa ma yaalin meesha. yes inaad qabato waa daw inaad qabato oo maxbisato oo waxa weeye maxaa ku dhacday ganaaxdo oo magaranaysa maxaa ku dhacday maamulka ku wareejiso waa sax weeye waa shaqadiina weeye laakiin inaad dishaan in la dilo shaqa ma taas waxa kaliya lagu baneeyay oo aad waxa weeye maxaa ku dhacday u joogtaa oo qoriga u sidataa oo aad magaranaysa nufayska ugu jirtaa qof dagaalamaya oo duulaana inaad magaranaysa maxaa ku dhacday ciidan hubaysan inaad magaranaysa ka hortagto. wixii intaa dhaafsiisan xataa ciidanka dagaalamaya ee magaranaysa ka soo horjeeda haddaad qabato oo aad waxa weeye gacantaada u soo galo ma dili kartid mana dili kartid mana maxaa ku dhacday ihaanaysan kartid wax dhibaato ah oo jirdal kuma samayn kartid waayo waxa weeye xaquuq buu haystaa qofkaasi maartay ilaahay siiyay iyo maxaa ku dhacday insaankuba waxa weeye la isku afgartay magaranaysa maxaabiistu xaquuqda maxaabiista ayuu leeyahay magaranaysa xaqii ilaahay siiyay buu leeyahay
marka waxaa la rabaa inaad sidaa u shaqaysaan oo waxa weye maxaa ku dhaha saraakiishu ay magaranaysaa seminaaro u furaan ciidamada oo ay wacyi geliyaan inkastoo xaaladdu iska adag tahay waxaan kaloo magaranaysaa rabaa inaad ka dambaysaan dhaqankiina ka dambaysaan oo culimadiina ka dambaysaan oo maamulkiina ka dambaysaan waayo waxa weye maxaa ku dhahda culimadu waa warasatul ambiya culimadu waa madaxda dhabta ah ee adduunkan waana wuxuu ku dhisan yahay culimada adduunkan wuxuu ku dhisan yahay weye waayo ilaahay subxaana wa tacaala adduunkan dhulkan iyo cirkan iyo dadkan waxa ku dhex jira wuxuu abuurtay inay caabudaan maalinta cibaado la waayo waxa weye dhulkan iyo maxaa ku dhahda adduunkan waa baaba'aya waxa uu jiraa inta ay culimo joogto cibaadana waxay jirtaa inta culimo joogto haddaad culimadii marka aad ihaanaysataan waxaan maqlayaa niman gadha dhuudhuubanayo niman surwaal gaabah iyo sheekooyin noocaasaan maqlaya oo dabdarra ah waxaan maqlayey waxa weeye in magaranaysa maxaa ku dhahda la yidhaahdo ay magaranaysa ciidamadu ay yidhaahdaan waxa weye maxaa ku dhahda gabadh yaroo fanaanada oo faasiqada ayaa culimadii loo ihaanaysanaya oo maamulkii loo ihaanaysanaya oo sharaftii iyo karamada cadho ilaahay baa idinku dhacaysaa ciqaabkii shalay idin haystay baad dib ugu noqonaysaan haddii aanaydan joojin waxa weeye ilaahay guushan ilaahay baa iska leh guushan ilaahay baa iska leh ilaahay baa idin siiyey waana laydinku imtixaamaya haddaanaydan imtixaanka aanaydan ku baasin waxa weeye halkii aad ka timaadeen baad ku noqonaysaan xaqiiqdu waa taa waxa weye maxaa ku dhaha markaa dhalinyaro iyo ciidamada magaranaysa maxaa ku dhahda xaqudirirka waxaan leeyahay waa inaanaydan xuduudda dhaafin xuduud baad leedihiin xuduuddiina ha dhaafina waxa weeye qofkii maxabuusa qofkii muxaariba oo dagaal ku jira yes iska difac ilaah baa ku baneeyey qofkii kale maxabuusa aad qabataan kii gacantiina soo gala iyo qofka aan magaranaysaa maxaa ku dhaha dagaalamayn labadaa midna inaad disho kuma banaana ma kuu banaana in la ihaanaysto oo si xun loola dhaqmo hadal xun la yidhahdana kuma banaana hadday iyagu sameeyaan adigu ha samayn hadday iyagu sameeyaan adigu ha samayn waxaan intaa magaranaysaa uga baxayaa insha allah bismillahi kariim dhaqanka iyo culimada iyo maamulku waxaan rabaa inay isdhex galaan waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa seminaar hadda ka socda magaalada laascaanood oo maxaa ku dhaha cuqaasha loo qabtay oo dhaqanka garaadada qaar ay kasoo qayb galeen oo ay bogaadinayaan oo lagu barayo waxa weye maxaa ku dhahda dhaqanka magta yacni maxaa ku dhahda sida ilaahay subxaana wa tacaala uu jideeyey sida magaranaysaa maxaa ku dhahda cidda la siinayo iyo maxaa ku dhahda sida loo bixinayaba waxa weeye intaba waxaan leenahay wartolow magta jooja hore waxaan u odhi wartolow magta jooja waa sax lama joojin karo oo wax ilaahay baneeyey laakiin xaaladan adag ee aynu ku jiro waxaynu kaga bixi karnaa in magta la hakiyo oo la yidhaahdo qofkii qof dila waa dil taa ayaynu kaga gudbaynaa oo cid walba lagu magaranaysa maxaa ku dhahday lagu xakamayn karaa waxaan ku soo gebagabaynayaa mar kale maamulka waxa weye waxaan warwalaalayaal oo allah idin barakeeye waxa weye waa dadaalaysaan shaqaduna waa idinku badan tahay laakiin dee hay-adaad u kala leedihiine maamulka deedejiya oo caasimadii maxaa ku dhahda buuhoodle waxa weye maxaa ku dhahda hooyadii halgankan ahayd ee 30 sano waxa weye aan calankeeda aan hoos aan u dhigin in maanta la yidhaho horgallaa jooga waxa sabab u ah maamulka ka daahay baa sabab ah maamulka in la dhaliilo sababtu tahay iyadoo aan maamulba jirin ayay iyagu ismaamulayeen waxaynu ku maamulayeen maamulkooda u shaqaynayay maamulkoodaasaa maxaa ku dhahda dadka matelayay maamulkoodaasaa waxa weye maxaa ku dhahda wixii adab daran qabanayay marka maamul la-aantu waxay leedahay fasaad weye waa burbur in markaa magaaladii la dhaleeceeyo waxa keenaya maamulka daahay baa keenaya allah idin fududay magaalooyinka oo dhanna maamulka hala wada gaarsiiyo hana la dedejiyo dhammaanteenna waxaan leeyahay reer SSC waa in gacmaha la isqabsadaa waa in gacmaha la isqabsadaa waxaan kusoo gabagabaynayaa 2 taariikhood buu leeyahay reer SSC 2 taariikh oo hore buu leeyahay taariikh dahabi ah oo caalamka oo dhan ku xusan oo ah taariikhdii daraawiishta iyo taariikh madow oo aynu ahayn tiyo ka horeysay ahayd oo aynu ahayn wada qooqaayo magaranaysa maxaa ku nin waliba keligii magaranaysa keligii geesi uu yahay oo nin waliba ninka ka xiga uu magaranaysa maxaa ku la dagaalami jiray oo aynu inagu wada iscuni jiray labada taariikhoodba way jiraan taabaynu qaadanaynaa marka taabaynu qaadanaynaa waxaynu u baahannahay taariikhdii dahabiga ahayd ee daraawish inaynu qaadano taariikhdaasina waxay lahayd nidaam iyo kala dambayn iyo isla maqal qof walba door buu lahaa qof waliba doorkiisu ku shaqayn jiray taa ayaynu rabnaa inaynu yeelano maamulkeenna in looga dambeeyo wax allaale wixii awaamiir ah waxa weeye dhaqanka in doorkooda looga dambeeyo diinta looga dambeeyo culimada in maxaa ku diinta looga dambeeyo dhaqankuna islaaxa iyo wixii maxaa ku dib u heshiisiina ee markaa maamulka aanay magaranaysa maxaa ku ka ballaadha inay la qabtaan ayaa loo baahan yahay allahayna wada waafajiyo aad iyo aad baan idin salaamayaa guulaysta baan idin leeyahay meel aad joogtaanba
dhallinyaradana waxaan leeyahay waxa weeye la shaqeeya maamulkiina xagjirnimadana iska daaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu